walaalayaal meel kasta ee aad joogtaan iyo xilli kasta ee idin tahay waxaan idinku salaamayaa salaamta islaamka ee ah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. insha allah waxaan kusoo qaadan doonaa barnaamijkan qabyaalada iyo foolxumadeeda oo waxaan sheegi doonaa insha allahu tacaala nabiga sallallahu calayhi wasallam qabyaalada wuxuu ka yiri wax kamid ah diinteena islaamka. sidoo kaleeto qabyaalada waxa ay ka tiri ayaan cadeyn doonaa insha allahu tacaala. inta samaha sheegta oo sifeesa waa in yar ee subscribe taha dhaafin. dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan uga digeynaa qabyaalada, waxaan u sheegaynaa inay tahay wax fool xun. nabiga sallallahu calayhi wasallam markii qabyaalada uu ka hadlayay wuxuu ku yiri saxaabadii dacuuha fa innaha muntinna, war qabyaalada ka taga maxaa yeelay waa wax qurun ah oo sanka laga qabsado. marka waxaan isweydiinaynaa wax nabigeena sallallahu calayhi wasallam ku tilmaamay qurun sanka laga qabsado oo la qurumeysto oo fool xumo ah in lagu faano wax mudan miya? su-aashaas jawaabteeda adinka ayaa laydinka rabaa insha allah. ilaahay qur-aanka wuxuu ku yiri markii qabiilada uu ka hadlayay yaa ayuhan naasu innaa khalaqnaakum min dhakarin wa unthaa wajacalnaakum shucuuban wa qabaa'ila litacaarafuu inna akramakum cinda allahi atqaakum inna allaha caliimun khabiir. wardadow waxaan idinka abuurnay lab iyo dhidig oo nebi aadam iyo ummuna xawaa loola jeedo, waxaana idinka dhignay shacbiyaal iyo qabiilo si aad isku aqoonsataan qabiilada. oo qabiilka in la isku dilo maaha. ilaahay xigmada dadka qabiilo ugu kala yeelay wuxuu ku sheegay litacaarafu inaan isku aqoonsano. inna akramakum cinda allahi atqaakum, ilaahay agtiisa midka idinkugu karaamada badan waa midka idinkuga cabsida badan. qabiil kasta qabiilka oo ka cabsi badan yahay ayuu ilaahay agtiisa ka wanaagsan yahay. ee qabiil kale wax kale ugu wanaagsan ma jiro weeyaan. qoryo badan iyo mooryaan badan iyo lacag badan iyo musuq maasuq iyo waxyaabo kaleeto laguma fadli badan ayuu yiri ilaahay subxaanahu wa tacaala. oo ilaahay agtiisa waxa lagu kala fadli badan yahay waa alla ka cabsiga. ilaahay agtiisa waxa laga qiimeynahay waa alla ka cabsiga. marka ilaahay qur-aanka ayuu noogu sheegay xigmada qabiilka loola jeedo. waxa la diidahay marka waxa weeyaan alqabaliya waxa la yiraahdo, oo ah in qabiilkaada aad si dulmi ah aad u difaacdid oo aad ugu xaglisid adiga oo ka xaglinaya qabiilada kale. marka taas ayaan isaga digaynaa insha allah. diinteena waxay ogashahay ma ahan. nabigana sallallahu calayhi wasallam sida aan sheegnay wuxuu yiri qabiilka ka taga ama qabyaalada ka taga maxaa yeelay waa wax qurun ah. xadiis kaleeto nabiga sallallahu calayhi wasallam wuxuu ku yiri laysa minna man dacaa ilaa casabiyya, naga mid ma ahan qofka dadka ugu yeero casabiyada oo qabiilka ayaa lamid tahay casabiyada. walaysa minna man qaatala calaa casabiyya, qofka casabiyo u dagaalama naga mid ma ahan. walaysa minna man maata calaa casabiyya, qofkii casabiyad ku dhintaa naga mid ma ahan. oo qabyaaladii ayaa lamid tahay sidaa sheegnay. qabyaalad qofkii aaminsan nabiga sallallahu calayhi wasallam qof wadadiisa haay ma ahan, waa qof lunsan. marka dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan uga digaynaa insha allah qabyaalada inay ka waantoobaan. 91 ilaa hadda dhalinyaro Soomaaliyeed ayaa la halaagayay oo dagaalada qabaa'isha iyo maaragtay dadka xukunka doonahayo dagaalada ay wadeen waxa ku dhamaanay dhalinyaro ay ahaayeen. marka dhalinyaro waxaan nala gudboon inaan ka digtoonaan arrinta. dadka siyaasiyiinta ah ama mucaarad ha ahaadaan ama muxaafid ha ahaadaan waa inaan rabitaankooda iyo jagadooda iyo kursigooda waa inaan ku caawin. maxaa yeelay waxa ana ka faa'iideyna malahan adduun iyo aakhira beel way. inaan u dagaalano inaan maaragtay buunbuulina ay rabaan
beri markay kursiga fadhiistaan waxay yaqaanaan male, qof ay yaqaanaan male. dadka shalay soo bunbuninahay meel kasta ku faafinahay ma yaqaanaan, ma garanahayaan yaa aheed ay ku leeyihiin. waxa ay sameynahayaan wax fiican maaha, waa la wada yaqaanaa. mid kasta markuu sii baxayo ayaa la inkaaraa, waxaa la yidhahda ilaahayow mid ka khayr badan oo keen. marka maxaa isku lugeynaysaa waxaas? waqtigiina waxaasaa ku dhuminina. dadkan wax isdhaama ma lahan, nin kasta dowlad ayaa wadato. marka ka digtoonaada qabyaalada iyo dadkaas xunxunka ah oo aad taageereysaan. siyaasiyiinta dad fiican ma ahan, boqolkiiba waxaa la dhihi karaa hal qof inuu fiican yahay laga yaabaa, halkaas qofna qof la yaqaano maba ahanba. marka maxaa isugu lugoynaysaa? marka qabyaaladaas ku taageereysaan iyo dadkaas aad iska taageereysaan oo siyaasi hebel waay caan waaye iyo waxaas iska ilaaliya. waa aragtay qof kasta, madaxweyne kasta markuu xilligiisii dhammaanahayo ilaahay waxaa laga baryaa inuu ilaahay nagu soo celin, ayaa ka barinaa markasta. kii imaada sida kii hore camal leeyahay ilaahay kan hanagu soo celin mar dambe. marka maxaa isugu lugoynaysaan? ha taageerina de, maxaa u taageereysaan? dadkaas awalba dad diin iyo maaragtay khayr iyo wanaag ku dhaqmaayo ma ahayn, waa dad wax kala wataan, haddana jeebkooda iyo maaragtay wax kasta ay gashanayaan, qofay wax ka siinayaan ma lahan, inkastoo xaaraan ay tahay oo in wax lagaa siiya ayna fiicneen. marka waa iskaga digaynaa insha allah arrintaas. qabyaalada inay xun tahay dhalinyaro waxaa ku ogaanaysaan, ama qofkii qabyaalad ku dhaqma ama markasta qabyaalad la sheegaa inuu qof xun oo caqligiisa xataa uu ku filan noqonayo, waxaa ku dareemaysaan ninka hadeertan aad soo dayi doono. bal nala dhegeysta ninkan waxa uu ku hadlayo, hadalkiisa ayaa isburi doono. ninkaasna waa nin la wada yaqaano oo caan ah, marka adinka ayaa arki doono. dhegeysi wacan. war mas-uul nooga waran, waxaa nooga warantaa magaalada muqdisho yaa iska lahaa, yaa haysan jire carrada tan xamar majartaan baa iska haystay oo iska lahaa, weligii majartaan baa lahaa. oo nimankaan hawiye maba degi jirin, dad reer xamar iyo shaanshi iyo xoogaa abgaalo bannaanka xamardaya degan bay ahaayeen. meeshaan majartaan baa xamar haystay oo dadkan boqortooyo u ahaayo dalkan iyo dadkan u ahaan jiray oo gumaysan jiray, oo dameeraha ay maaragtay u ahaan jireen haddii ay ku idmaayo. haye mas-uul, mar labaad haddana waxaa kugu soo dhaweyneynaa, isla barnaamijkii ayaa ku jirta. marka bal nooga waran nimanka hadda aa dhahday waxay haysan jireen magaalada xamar, bal nimankaas asalkoodii nooga sheekay. jarteenkan barkiisa laga keenay Zanzibar iyo Madagascar iyo la keenay, oo dhulkan sada deganaan jiray, weligiis boqortooyadiisa sada deganaan jirtay. 1917 18kii halkaasay bilaabanaysaa, markaasaa la keena lagu soo beero talyaanigii balaayasan been samaystay la soo dejiyay almajarteeniya ah boqortooyo oo kuwaa degan maanta. xagee laga Zanzibar Madagascar baa la keena. u fiirso nin madaxu intaa la eg yahay oo maaragtay caayahaya halkaysaa oo daarood sheeganayo jareer caayahaya, asaga madaxu intaa la eg yahay, qanjarku intaa la eg yahay, kaasuu jareer caayahaya. ala quraysh baa taa marka intaasaa madaxu la eg yahay dilay kudbaan iyo surku. nimaya waxaa beenta ah naga daayay ilmaha reyaalo. waxaa war ma jarteen barkood waa la qaray, war galgale oo weligii abgaalaha ma jarteen aakhiru markii ugu dambeysay ma jarteen maara. haddana la dhegeysta isla asagii oo qolo kale haddana ku dhagan. magaaladaas rabtaa habargidir xaaraantaasay rabtaa. habargidir waxay rabtaa xaaraan ilaa jamaamay haysataa. dowlad hadday dhalato waxa weeyaan beerihii xaaraanta jamaame, kuwii jilibay xaaraantaha, kuwii baraawe kulli waa laga kicinaya haddii ay kudmaayo. haye haddana waxa haddana isla asagii weeyaan oo haddana qoladii hadeertaan ammaanay. bal dhegeysta adinka yaabi dooneen. galmudug niman ka wadanisan, nimankan habargidir niman ka wadanisan oo ka caqli badan oo ka xigmad badan oo ragga ka ragnimo badan oo ka qooro weyn nimanku ma jirto. war maxaa tiri hadda maxaa dhehaysa? ilbiriqsi ka hor hadda maxaa na dhehaysa niyo noo sheegaysa? bal dhegeyso waxa hadda na dhehaysa. magaaladaas rabtaa habargidir xaaraantaasay rabtaa. habargidir waxay rabtaa xaaraan ilaa jamaamay haysataa. dowlad hadday dhalato. haye haddana bal dhegeyso waxa sheegaysa. galmudug niman ka wadanisan, nimankan habargidir niman ka wadanisan oo ka caqli badan oo ka xigmad badan oo rag. subxaanaka ya cadiim. waad maqlaysaa ninkan waxa uu sheegahayo iyo waxa uu daldalahayo iyo maaragtay sida oo qabiilada intuu haddana caayo isla markaa haddana uu ammaanahayo. marka sida ayaa noqon doontaa 40 sano haddaa gaartaan iyo ka badan dhalinyaradiina hadeertaan
soddonka ama 20 jiraan. marka waxaan isku waaninaynaa insha Allah inaan ka digtoonaano qabyaaladda waa waxa wadankeena burburiyay, wadankeena waxa wadamada dhan ka duway oo ka dhigay wadanka adduunka ugu musuqmaasuqa badan, wadanka adduunka ugu nabadgelyada daran, wadanka adduunka ugu faqriga ah soo ah wadanka adduunka ugu hodansan ama ugu qaniga ah ayuu haddana wuxuu yahay wadanka ugu maaragtay faqriga ah adduunka. sababtan wax kale ma waa dowlad la'aanta iyo qabyaaladda iyo qashinka iyo maaragtay dadkaas oo dad xun ayaa waxay noqdeen siyaasiyiintii ayaa waxay noqdeen dad xun. dad fiican ma nin kasta wuxuu rabaa inuu maaragtay guryo oo dhisto ayuu rabaa. nin wadaniyad ay ku jirto ma lahan weeye. ayaga dhan waa isku wada mid. ma garanaya sixir miyaa wadan ku jiro, ayaga miyaa awal qalbigooda xumaa oo markay hadlahayaan iska dhigaan dad khatar ah oo fiican oo wadaniin ah, markay fadhiistaan maaragtay qalbigooda wixii oo ahaa iyo ayaga waxay ahaayeen bal la soo baxaan. ma garanayno waxba qaldan. marka dhalinyaradeenna waxaan isku waaninaynaa inaan ka digtoonano arrinta. adduun la-aan iyo aakhira la-aan weeye nimankaas taageerayno ama mucaarad dheh ama muxaafid dheh waxay isdooriyaan ma leh. ayaga dhan waa isku wada mid. 2006 waa xasuustaan dhalinyaradii lagu xasuuqay dagaal lagu sheegay in lala dagaalamayo dad diinta islaamka kasoo horjeedaan oo dadkii iska mooryaanta ahaa dadkaas madiina shuqul ku lahayn dad iska mooryaan ay ahaayeen. maxaa ka dambeeyay marka in masaajidadii la qarxiyo, in meel kasta la qarxiyo, dadkii in la halaago oo la xasuuqo oo la laayo ayaa ka dambeysay. nimankaas niman mooyaana iska ahayn wadanka isbaarooyin iyo dadka hadhibaan, laakiin dhibka ayaa hadda lagu jiro ayaa ka daran wey. waxaasna waa niman diin sheeganahay ayaa maaragtay dhalinyaradii duufsadeen. marka waan isku digaynaa, waxaan iskaga digaynaa arrimahaas. waa in xilligaadii hore baastigaadii waa inaad maaragtay uga qiyaas qaadataa future-kaada. wixii lasoo dhaafay waa in qiyaas ay ku noqdaan. 2006 waxaa la dagaalamaha la yidhi shahaada la dirir, dadka shahaada la dirir ayaa la dagaalamaha la yidhi. hadda ma shahaada kor la yeelayaa? shahaadada ma diinta islaamka ama tawxiidka miyaa hadda kor loo qaaday? waa maya. masaajidada dadka islaamka lagu leenahayaa. dhalinyaradii jaamacadaha ka baxay oo wadanka anfici lahaa oo maadigii bartay ayaa la qarxinhayaa. dhibaatadaas ayaa marka ka dambeysay 2006 dhashay waxaas maxaakiimtii kuwa lagu magacaabay. marka hadda inaan marka sida wax hadda dhashay camal inaan anaka maanta dan dabka lagu shidaan isla ragii shalay ahaa in dabka maanta lagu shidaan wax aqli gala ma. dhalinyarada marka waxaan ku waaninaynaa in qabyaaladda iyo qashinka iyo dadkaas siyaasiyiinta xun ah ee iska ilaaliyaan. aniga hadda mid taageersanaa malan, farmaajo ma taageersanin, mucaarad ma taageersanin, waxaa taageersanaa malan. maxaa yeelay waxaan ogahay baastiga shalay ama maadiga shalay ama waqtiga hore oo shalay ayaan ogahay wixii dhacay iyo sidii dadka ahaayeen iyo shalay dadka sidii loo galahayay. iyo maanta weji cusub intuu kula imaado qofkii oo iska kaa dhigaya nin khatar ah oo weligiis aan dambi sameyn oo dad aan laynin isaga kaa dhigayo fiican oo wadani ah. marka wadaniyiin maahan. nin kasta dowlad ayaa wadato. mucaaradka haday wataan dubay iyo haday wataan kuwaana muxaafidkan ama farmaajo iyo kuwaana waxaa wata dee qadar oo la yaqaano sida argixisada iyo balaayada u taageerto. marka waxaan isaga digaynaa insha Allah arrimahaas. barnaamijkan ka faa'iideysta. ilaahay hadin ku anfaco insha Allah. dhamaanta ilaahay nagu anfaco. kuwii qaato taladaas ilaahay naga dhigo. waa talo idin kaga imaatay walaalkiin oo dhalinyarada kamid ah oo khayrka iyo wanaagga iyo maaragtay waxtarkiina idinla jecel, adduun iyo aakhiradiina idinla jecel. qabyaaladaas iyo qashinkaas sida hadda odaygaas ku hadlahay aad aragteen, odaygaas caanka ah oo weliba isku soo sharaxay madaxtinimada fiir. ninkaas madaxweynimada isku sharaxay, haddana xildhibaan imaaqa waxuu isku soo sharaxaya dartan. marka kaasoo kaleeto way ka dhan waxay isdhamaan malan. xoogaa waa kala kuwana waa waalihiin, kuwana waa isqarinahay maahane, waa isku wada mid. taas camal ay ka dhan wada hadli doonaan. marka iska ilaaliya. hadda adoo dhalinyaro ah lagugu shaqeysto oo maaragtay nin siyaasi ah oo beri markuu xilka qabto oo aan ku aqaanin oo xafiiskiis kaasoo bari doono oo hadda kugu shaqeysto oo adigana qabiil ku taageeraysid oo maqan tahay, markaa weynaatid 40 gaartid ninka camal ama ka badan, adigana waxa noqonaysa qof isdardar ah oo eber ah oo nooc kala ah oo maaragtay sidii ninka camal marna qabiil caaya hadana qabiilka amaanay isla qabiilka amaanayo isla daqiiqada ka bacdi. marka insha Allah taladaas ayaan idin soo gudbinayaa. ilaahay hanagu wada anfaco. billahi tawfiiq. wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.
inta samaha sheegta oo sifeesa waa in yar ee subscribe ta ha dhaafin.